wiilkan oo loo yaqaan saddexaas leh waxa uu sun u qurquriyay si uu u helo gabadha uu jecel yahay. muuqaal uu ka soo duubay cusbitaalka ayuu ku sheegay inuu nafta iska goynayo hadduusan helin jacaylkiisa. gabadha uu dumar ka calmaday oo ku daadisay ayaa u sheegtay inuusan u qalmin sunta aan loo dhiman ee Guriceel, sida lagu aamini karo qisada jacayl ee ninka hore u baahiyay xaasaska been abuurka iyo dabinka qurgooyada ah ee lamaanayaasha Guriceel ay isku haligayaan. ayaan warbixintan ku qaadaa dhigi doonaa falowde bogga Maxamed Muuse Tarsan. haddii aad nala socotay like saar muuqaalkan oo sii faafi. mahadsanid. sunta aan loo geeriyoon ee Guriceel oo lamaanayaashu ay cabayaan ayaa magaaladan barbar dhigtay Paris, Bangalore ama Calcutta oo ah magaalooyin leh tagtooyin tolmoon iyo taariikho jacayl oo loo dhintay. Guriceel oo ah magaalo ganacsiyeed ku taal gobolka Galgaduud ayaa sanadkii hore diiwaan gelisay jacaylka sunta loo qurquriyo oo ugub ku ah deegaanada Galmudug kadib goortii wiil lagu magacaabo Khadar oo ay jacayl ku daadisay gabar ay sheeko wadaag ahaayeen oo ka baday sunta jiirka taasoo halis gelisay naftiisa. maalintaa wixii ka dambeeyay tobaneeyo dhalinyaro ah ayaa Guriceel ku qurqurinayay sunta lagu dilo dooliga si ay u hantaan gabdho iyo wiilal ay jecel yihiin. Xasan Cabdirashiid Malabsade oo magaalada Muqdisho si weyn looga yaqaan waxa uu ka ganacsan jiray dawooyinka la isku naashnaasho iyo qasqaska haweenku ay isku cadeeyaan. markii uu bishii Febraayo ee sanadkan sheegay inuu hal guri ku wada qabo gabdhahan oo la kala yiraahdo Mumtaaz, Caasho iyo Sumayo, kuwaasoo garabkiisa ka soo muuqday iyagoo dhoola cadeynaya, waxana uu tilmaamay inay farxad iyo kalgacayl ku wada nool yihiin, kuwaasoo midba mar ay kula kulanto qol isaga u gaara, taasoo noqotay sheeko aan sal iyo raatoona lahayn oo uu ku doonayay in lagu barto ama uu caan ku noqdo. warbaahinta oo sheekadiisa aad u hadal haysay ayaana raaligelin ka bixisay. maanta mar kale ayaan arkaynaa Xasan Cabdirashiid Malabsade oo qiso jacayl ka hadlaya. wariye maxalli ah oo ku sugan Guriceel ayaa soo tabiyay in Xasan Malabsade uu diyaarad ka raacay Muqdisho si uu u guursado Sacdiye Axmed Kulane oo ah gabar degan magaalada Guriceel, taasoo uu kala dhaxeeyay jacayl nafla qaybsi ah. muuqaal laga soo duubay Xasan Cabdirashiid Malabsade ayuu ku sheegay inuu qurquriyay sunta dooliga si uu u helo gabadha uu jecel yahay oo ku daadisay markii uu caga dhigtay Guriceel. sawirada la baahiyay ayaa muujinaya isagoo sariir saaran afkana xoor ka daadinaya. Xasan Cabdirashiid Malabsade waxa uu sheegay inuu muddo 3 sano ah jacayl xad dhaaf ah u qabay gabadha uu darteeda sunta u qurquriyay, taasoo uu doonayay inuu guursado balse u sheegtay inuusan u qalmin goortii uu magaaladeeda ku booqday. dhalinyarada ku soo dhaweysay magaalada Guriceel ayaa kula taliyay in xalka kaliya ee gobolka Galgaduud gabar lagu siin karo uu yahay inaad sun qurquriso, taasoo lagu eegayo heerka nafhuridda iyo jacaylka aad u qabto gabadha aad gacalootay. dhab ahaanshaha qisadan jacayl ee sunta loo cabay waxa hoos u dhigaya ka soo muuqashada Xasan Cabdirashiid Malabsade oo horey u lumiyay kalsoonida dadweynaha maadaama uu sheegay inuu hal guri wada dejiyay 3 gabdhood oo uu wada qabo, taasoo xaqiiqada ka fog.